haddii qofka uu dhafro habeenkii ama xilli hore uusan jiifan oo uu gaaro 2 ilaa 3 habeenimo oo xilli dambe habeenkii ama aad tahay dadka seexda maalintii oo habeenkii soo jeedo sida qofka habeenkii inuu shaqeeyo wax la mid ah maxaa isbedel ah oo ku dhacayo jirkaada sida sawirkurtiina ka arkaysaan maskaxda waxaa jirta buqcad yar oo ku taalo oo lagu magacaabo suprachiasmatic nucleus waa halka ay ka timaado ama laga amro ama laga maamulo badashada iyo yaraanshaha dheecaanka ama hormoonka lagu naanayso hormoonka hurdada ama sleep hormone kaasoo loo yaqaan melatonin marka xilliga habeenkii mugdiga aawadii wuxuu u jirka ziyaadinayaa soo deynta dheecaankan taas oo sababayso in qofku hurdo caafimaad leh ama tayo leh si la mid ah markuu waaga baryana iftiinka maalintii aawadii waxaa hoos u dhaco dheecaankan melatonin sidoo kale waxaa sare u kaco xilliga aroortii dheecaanka kale ee lagu magacaabo cortisol taasoo sababayso in qofka dareemo firfircooni badan xilliga aroortii marka sidaas si fiican igula fahantaan ila fiiriya sawirkan hortiina ka muuqda saa arkaysaan midabka madow yani waxaa loogu talagalay wax lagu fahmo yani waa habeenkii halka midabka cadna uu yahay يعني مالنتي يعني isbedelada inaan fahnaya rabnaa oo yani xariiqmankan gaduudan iyo buluuga yani waxay u taagayeen si qodobada hadda aan sharxayna u fahantaan si hadii dadka jiifta maalintii aad tahay يعني ciladaha halka ay ka imaanayaan isbedelka u fahanto xilliga maalintii hadda waxaan qoraxda oo kale waa si loo fahmo loogu talagalay saarkaysaan hormoonkan ama dheecaanka cortisol xilliga maalintii aad ay u badan yahay saarkaysaan gaar ahaan gelinka hore ee maalintii هذا سيدا هو سأركيسان لحدة صباحنا أرورتي إلا ظهرك يعني ويربدين سأركيسان لكن مركل السوق جار هبينكي سيدا هل كان كاركيسان ومت كان جدودن وحدا عينه الصوير هذا وهبين مركل السوق جلايا آدي يهوس وصور دعايا هذا عين كان كورتسول كما جالس سأركيسان مركل حريقا جدودن سالو وترجله هبين مركل السوق جلا هوس يودعايا سلم مد حلقة معلنتي وحريقا بلوجا يعني حلقة معلنتي dheecaanka ama hormoonka hurdada yani dheecaanka loo yaqaan melatonin ee hurdada qaabilsan maalinta hoos ayuu u dhacayaa si qofka active u noqdo habeenkii sa arkaysan kor ayuu u kacayaa dheecaanka melatonin yani habeenkii kor ayuu u kacayaa marka sidan waa sida saxda ah oo jirkan u shaqeeyo kana maalintii uu kacayaa si qofka active u noqdo firfircoon u noqdo yani energy production kiisa u ziyaado ama soo saarka tamartiisa yani jirkiisa u noqdo mid active oo si fiican u shaqeynayo يعني dheecaanka cortisolka ayaa kacayo gaaraan xilliga hore maalintii habeenkina waa u soo yaraanaya marka kan habeenku wuxuu u soo yaraanaya waxay tahay jirka si oo u nasto u dago qofkan ugu qabto daalka maalintii si subax u soo tooso asigoo fircoon maadaama habeenkii loo baahnay fircooni zaid ah dheecaankan hoos ayuu u dhacayaa laakiin habeenkii maadaama qofku inuu si fiican u hurdo loogu talagalay kan aad ayuu sare ugu kacayaa kana aad ayuu hoos ugu dhacayaa saarkaysa marka waa laba dheecaan oo isbedela sida had sawirada ka arkaysa maalinta waxa badan midkan cortisol habeenka waxa badan midkan melatoninka sidan waa sida uu shaqeeyo marka hadii qofka habeenkii oo iska dhaaf hurdada ama uu ka guuro oo bilaabo inuu jiifto maalintii ama xilli dambe habeenkii maxaa dhacay waxa isbedel ku imaanaya ama qalqal ku imaanaya dheecaanadii tusaale waxaa dhacaya sida sawir kurtiina ka arkaysaan waa markuu qalqalka yimaado waxaa dhacayo in cortisolkii loogu talagalay inuu maalintii bato hadda gaduudkan yani markii qalqal uu ku yimaado loogu talagalay maalintii inuu barto bedelkeeda inuu bato habeenkii maadaama qofku uu soo jeedo waa active yani energy ay maskaxda isticmaalaysaa ama tamar ay isticmaalaysaa ama sokor ay isticmaalaysaa maskaxda oo yani cunto kasta oo jirka sokor ayuu u bedelaa maskaxda marka la geynayo oo glucose ayaa loo yaqaana marka waxaa dhacay in habeenku uu ziyaado caadiyan waxaa loogu talagalay in habeenka jirka inuu nasto oo hoos u dhaco maalintan maxaa ku dhacaysa arkaysan gaduudka hoos ayuu u dhacay waxaan laga rabay sida sawirkan kale aan ku soo sharaxnay inuu maalinta ziyaado arrinka marka maxaa ka dhalanaya qofka jirkiisa inuu habeenka active ahaado taas marka maxay sababaysaa halkii jirka uu ka nasan lahaa maadaama active uu yahay xaalada ay ka dhashtay sida sawirkan kale hortiina ka arkaysan xaaladaha ka dhashtay waxa kamid maadaama cortisolkan aadka u ziyaaday يعني shaqooyinkiisa ay kamid ahayd heerka sokorta dhiiga iyo cadaadiska dhiiga inuu sare u qaado arrinka hadii ay soo laalaabato waxa dhacay inay qalqal ama arqalad ku timaado heerka sokorta ee dhiiga heerka cadaadiska dhiiga arrinkan waa sababta loo dhaho qofka hadii soo jeedka habeenkii bato
waxaa ku dhici kara xanuunadan dhiigkarka iyo sokorta yani meesha ay ka timid waa meeshaas qalqalkan ku imaanaya dheecaankan ayaa sabab weyn ka qaata sidoo kale waxaa dhacaya qofka in xanaaqiisa oo bato in yani niyadjabka u nuglaado in jirkiisa stresski xaaladaha walwalka si fiican uusan ugu jawaabin maadaama dheecaanka qalqal uu ku yimaado yani qofka in yani xanuunada nafsiga ah oo jirkiisa u nuglaado yani ayaa dhacayso sida hortina ka arkaysaa sidoo kale dhanka kale dhacaanka hurdada qaabilsan ee melatoninka loo yaqaan asagana qalqal ayaa ku imaanaya maadaama habeenka uu ziyaadayo asaga wuxuu ku xiran yahay saa sheegnay qaybta hore cashirkan kusoo sheegnay suprachiasmatic nucleuska fariinta loo gudbinayo xaruntan macnaha yani centerkan ama xaruntan dhexe fariinta yani iftiin ay soo gaaraya ama mugdi ay soo gaarayo indhaha looga soo gudbinayo ayaa waxaa lagu amrayaa in dheecaankan la badiyo ama la yareeyo marka maalinta maadaama iftiin uu jiro yani fariinta gaaraysa waxay tahay in yani loo baahnayn melatonin fara badan oo maalin ay tahay qofkan active uu yahay yani uusan u baahnayn yani taas marka waxay sababaysaa in dheecaanka melatoninka sida hortina ka arkaysaan oo hoos u dhaco sababtana waxay tahay sida hadda sawirkan kala arkaysaan yani marka iftiinka uu indhaha soo galo oo yani fariinta ay u gudubto يعني ما هنقطة إفتين مجد هنقطة يعني ما أنت إفتين ما دام أنت فرينت لو جود بنا عيو بقعد عير سوبر جسماتيك نوغليس كله يقانو يعني إن قنجر كان لجسو دي عملوا صوص سماء ده عن كميلاتونين كبين الجلاند كله يقانو سعر كيسان يعني إن لجسو ده ميلاتونين أمر كذا وحيكسو بالعوضة بنانك يعني أول جيدو iftiin haddii uu soo gala badan macnaheedu waxay tahay xilli hurdo lama joogo haddii mugdi ay tahay xilli habeen ay tahayna yani fariinta la gaarsiinayo waa maxay yani waa xilli habeen dheecaan badan soo dayso qofku nasta marka wixii oo dhan qalqal ayaa ku imaanaya labada dhinacba oo normalka saarkaysan sidaan ayaa dhacaysa qalqal ayuu ku imaana oo waxa dhacaya dheecaanka inuu yaraado marka qofkii maalinta maxaa dhacaya marka waxa dhacaya qofka maalinta inuu hurdada ka soo kaco in hurdada markuu ka soo kaco kadib jajab iyo daal fara badan oo dareemo in hurdo dhiib ah oo raaxa ah yani oo quality leh oo tayo leh inuusan hurdinaya dhacayso arrinkan ugu dambeyn yani sida hadda cortisolka aan sheegnay xanuunada nafsiga ayuu ka dhaxlayaa xanuunada nafsiga ayuu u nuglaanayaa qofka dhiigkarkiisa sokorta ayuu u nuglaanayaa qofka diiniyana sida ilaahay quraankiisa kariimka noogu sheegay wajacalna libaas wajacalna har macaasha qofka caadiyan waxa loogu talagalay maalintii inuu shaqeeyo habeenkiina oo jiifto balse haddii arrinkan qofku uu kala bedelo hormoonadii ayaa qalqal ku imaanaya dheecaanada ayaa qalqal ku imaanaya waana sabab dadka qaar ay u qaataan daawooyinka melatoninka si hurdada u saxaan yani qofka marka hore waxaa fiican in arrinkan uusan iska qaldin oo yani wax kasta ay ku kacaysa ama wax kasta oo ka dhalanaya yani mar walba waxaa fiican inuu ilaashado yani xilliga hurdada يعني دنك عمري حتى وحلا شيء علم بارس إنسامين حقوقن يقول له عافمات خوفك إنه يعني وحياة فربنا مركنا فانتين يا رجانا يا سلام عليكم